war-saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka dowlad goboleed galmudug maanta oo taariikhdu tahay 2 bisha shanaad 2018 ujeedo mowqifka golaha baarlamaanka galmudug ee ku aadan khilaafka ka taagan galmudug sida aad la socotaan laga soo bilaabo bishii December 2017 waxaa socday fulinta heshiiskii galmudug state iyo ahlu sunna wal jamaa balse waxaa jirtay in la hareer maray habraaci fulinta heshiiskaas ee lagu galay Djibouti ee ka koobnaa 14 qodob kadibna lagu saxiixay madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo ay marqaati ka yihiin madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka qodobadaas ay ku cadaayeen 1 samaynta guddi farsamo oo diyaariya habka isku dhafka labada baarlamaan dastuurka iyo ciidamada sidaa daraadeed ma jiro guddi farsamo oo arintaas loo xil saaray oo aan ognahay waxaana ka war helnay in dastuur la sameeyay baarlamaanna la diyaariyay iyadoo aan la marin habraaci heshiiska Djibouti 2 qodobka afraad ee heshiiska Djibouti waxa uu sheegay in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyadoo la raacayo habka awood qaybsiga beelaha taas oo si cad loo hareer maray 3 qodobka 9aad ee heshiiska Djibouti waxa uu sheegay in la iswaafajiyo labada dastuur sidaas daraadeed ma jirto meel la isku waafajiyay labada dastuur waxaana ka war helnay in dhanka ahlu sunna ay sameysteen dastuur ay ugu magac dareen dastuurka galmudug taas oo meesha ka saartay dastuurkii sharciga ahaa ee galmudug iyo kan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka oo ay ku heshiiyeen beelaha galmudug kadibna ay ansixiyeen ergo ka badan 800 oo ergo ah kadibna bishii 8aad ee 2015 baarlamaanka galmudug uu ansixiyay sidaa daraadeed waxaan cadaynaynaa markaan aragnay cabashada bulshada galmudug ee aan wakiilka ka nahay iyo guud ahaan dowlad goboleed galmudug oo diiday waxa socda una arkay in lagu fashilinayo dowlad goboleed galmudug ee sharciga ahaa 1 xubnaha baarlamaanka galmudug in aysan aqbalaynin wax kasta oo ka soo baxa dhuusamareeb oo hareer marsan heshiiska Djibouti 2 waxaan ku baaqaynaa ama ugu baaqaynaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed galmudug inay ku soo noqdaan xaruntooda cadaado si looga wada tashado badbaadada dowlad goboleedka galmudug 3 waxaan taageeraynaa war-saxaafadeedkii uu soo saaray 29 bishii afraad 2018 madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi kaasoo u muuqda inuu xal u horseedi karo heshiiska galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa ugu dambeyntii baaq 1 waxaan bulshada reer galmudug sida siyaasiyiinta galmudug ganacsatada odayaasha indheergaradka dhalinyarada iyo haweenka ugu baaqaynaa inay u istaagaan badbaadinta dowlad goboleedka galmudug 2 dowladda federaalka Soomaaliya oo marqaati ka ahayd heshiiska galmudug iyo ahlu sunna waxaan ugu baaqaynaa inay soo fargeliso heshiiska galmudug iyo ahlu sunna oo runtii halis ku socdo 3 beesha caalamka gaar ahaan IGAD Intergovernmental Authority on Development waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin howlaha ka socda dhuusamareeb ee aan waafaqsanayn heshiiskii Djibouti ku galeen galmudug iyo ahlu sunna wabillahi tawfiiq